السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيي الكسود هذا وبرنامج كيني فسيرات ريوينكا يولال كينا على فاتح. نقيب هراء جرتان دوبني مركا هذا سؤالها هذا وحنا كسو قادنينا فيديو جي هراء كومنتات لو سو قري أيان سو قادنينا إن شاء الله. سؤالها ضمن وحسو قادن دونا كومنتات لسو قري دونا إن شاء الله. بارك الله فيكم. شيخي قبلنا وحلا هاي وشكرا على مقعدة وحلها السلام عليكم walaalahayga waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan alxamdulillaah waxaan rabaa laba riyo in la ifasiro tan koowaad waxay leedahay waxaan ku riyooday anoo uur mataana wado ee leedahay ما شاء الله شكرا أورمتانا مي شكت إني حاسة هاي ما sheegin قبلها هدي حاسة هاي هدينا حاسة هاي وي قرسن دونتا إن شاء الله تعالى هدي أي رير لها هينا أولاد بيالن دونتا هدي أي فقر إيه وحكا شيئا سنة إن شاء الله تعالى ومعلم قروح بدنا وصول صعود إن شاء الله سؤال شلبات waxay leedahay waxaan ku riyooday anoo gabar aan qaraabanahay dahab badan u xiraayo saasala gabadhaas waxay ku tusi karamka ama deeqsinimadkeeda ayay ku tusaysaa ma sha Allah Allahu a'lam ما شاء الله سؤال شلبات waxaa soo weydiiyay walaal la yiraahdo Cabdullaahi Saciid walaalku wuxuu leeyahay sheekh waxaan ku riyooday macallinkayga quraanka mar anigoo la subcinayo subac kula jiro laba dhinac way u baahan tahay in laga istaago sax marka koowaad waa aragtida qofka ahlu diinka waxay ku tusaysaa qofkaas riyoonaya xaaladiisu inay wanaagsan tahay sax uuna yahay qof Ilaahay u dhow ama u dhawaan doono oo dib ka wanaagsanaan doono xagga quraanka iyo akhrintiisa hadduu qofku ku riyoodo asaga oo quraanka akhrinayo waa tafriijul kurbaati wal humum wa qadaa al hawaa'ij baynahan culimadu yani kurbooyinka laga qaadaya xaajooyinkiisana waa la gudayaa wanaagyo badan oo kalena waa sii leedahay riyada quraanka Allahu ma sha Allah qofka kale wuxuu leeyahay magaceedu waa Xaliimo Axmed waxay leedahay sheekh assalaamu calaykum waxaan ku riyooday marar badan mas ama bahal aad u weyn oo ciirsanayo oo iqabanayo midabkiisuna uu yahay madow iyo cadaan aad u qurux badan miyuu qabanaya mise way ka cararaysa waxay tiri wuu ciirsanayaa wuuna iqabanayaa haddii aad ku riyooto khalaqa iyo waraabaha iyo waxaas ayuu ku ciirsanaya waa xasad inta badan marka dee hadday ku qabtaan xoogaa xasadkii waa ku asiibay mas weera masku waa sidaas hadduun ku qabanin inaad ka fakatana uu iska kaa daba socda oo weli dhagartii iyo kaydkii waa socda marka xasadna wuu noqdaa sixirna wuu noqdaa marka waa sidaas gabadhaas fasirkeeda Allahu a'lam si fiican okay su'aalka kale wuxuu leeyahay سؤالك الوحولية السلام عليكم شيخ وانكو سلام سلام كدب قبل أو سيدي جرأة باكوري وطينين دادك دلدلة داد أكتاذا كلينايا كدب آيدنا كعررتي كدبنا ننكا عنا يعني كدب آيدو عنا كودا أمالينا دادكو دلدلة آيدنا كعررتي كدب وساقبتو عنا ساسي كودا أمالينا مقعد كوداس قبل مقعد وخديجو waxay ku tusaysaa gabadhaas haddii uu yahay ninka dadka cunaya inay taqaano gabadhaas in uu ninkaasi dhankeeda faa'iido uga imaanayo haddaynan aqaanina in shakhsi uu nolosheeda ku cusub inuu faa'iido u soo kordhin doono gabadha yar sidii jirka gabadha yartaa oo uu gabadhaasi u cunay oo wax u tari doono oo bacd al-axyaan waxa laga yaabaa inay ayada riyootay inay noqoto baa laga yaabaa sax Allahu a'lam اوكي سائلك كلا wuxuu leeyahay magaceedu waa Madiino waxay leedahay sheekh assalaamu calaykum waan ku salaamay waxaan ahay gabar single ah waxaan ku riyooday caaro weyn oo igu soo ordayso 3 mar ayaan iska tuuray ka bacdi waan dilay waxa igu baqday caloosheeda garabka iyo wajiga midig ayay iga gaartay waana iska dhaqay عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قولت وين السلامتي الله بركاته
gabadhaasi maalmo yar oo xoogaa yar adag bay laga yaaba inay gasho marka laakiin insha allahu tacaala ugu dambaysta se iskaga dhaqday bay uga bixi doontaa marka umuuraha allaha sahlo aamin aamin allahu aclam gabadha kale waxay leedahay magaceedu waa Nimco waxay leedahay assalaamu calaykum sheekh waxaan ku riyooday anoo hal maalin lay qabo oo lay dhahayo uur baad leedahay markaasna masjid baan joogaa welina ma guursanin oo gabar baan ah gabadhaasi way toobad keeni doontaa qof xaaladiis wanaagsan tahay noqon doontaa wayna guursan doontaa insha allahu tacaala can qariib waqti dhow allahu aclam الله فوضى سائلك كل وحوليه هاي وخان علي مقعيسة وحوليه هاي شيخ وحان كوري وضي أنيقو أي قلمونايو سبحان الله من نبه مسوها وحالقيا با قبلنا ته مقع خان استعماله هدي أي قلمونايو خان هرت محي معنيس خان ومقع هذا هندي استعمال شو هو مقع عادي اسكو بعض ها مقع لو أرمي رياض كنت سيسا marka midda koobaad waxa weeyahay gabadhu inay jiraan dad xastaya ama dhagar iyo uu hayo khiyaameynay midda labaadna waxa weeyahay in ay dhaxal iyo hanti fara badan mumtalikaad ama caqaaraad waxa loo yaqaan dhulal iyo inay heli doonto si dhib yar oo bilaa tacabana ay ku soo gali doonto marka labadaas qaybood weeyaan gabadhaas riyadeeda fasirkeeda qoftan kale waa Asma Ibraahim magaceeda waxay leedahay السلام عليكم شيخو وحان كوريوضي أنيقو أخرينايو سورة ياسين dad ku riyoto suuratu yaasiin waxaa ku tusaysaa raxmad iyo waxaa la yidhaahdo gufraan dambi dhaaf naxariista iyo dambi dhaaf inuu qofkaas heli doono waxaa kaloo heli doonaa bay dhahaan culimadu sida sheekh Naabulsi oo kale tuu sheegayo irsaaqad fara badan iyo cumri dheer ayay ku tusaysaa marka riyo wanaagsan way qiraa'atu suuratu yaasiin قراءة القرآن كله يا ريا وناكسنا إن شاء الله هل كابين يقولين سؤالين نعاو إن شاء الله دمانتين أدبا بما سنتهين هدي الچانل كأتكو عصبتهاي سبسكرايب نورد إن شاء الله بارك الله فيكم السلام عليكم